هذا العلمي لبا arrimood ba runtii inaan ugu hambaliyeeyo labadaas arrimood koow ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhda dheer iyo waxqabadka uu ku leeyahay gaar ahaanna intii uu aniga hadda uu taliyahay ahaa oo marna aan ahay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marna aan ahay muxuu ahay ii sheegay taliyaha ciidanka dhulka oo muxuu ahay ii sheegay markaasna taliya xigeenkuna runtii asuguna hawlaha aan qabanaynay aan runtii muxuu ahay ii sheegay marna aan qalbigayga ka go'i doonin shaqadii wanaagsaneed diritiibadii iyo hagidii ay runtii muxuu ahay ii sheegay ay la garab taagnaayeen oo taliyaal igu ahaayeen waxaan rabaa inaan horta awalan marka hore taas uga mahad celiyo oo dhaho aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa marka si gaar ah haddana taliya daahir inaan uga mahad celiyo runtii aaminsanahana dareensanahana farxad inay u tahay jeclaana laha taasoo kale mustaqbalka inaan gaaro ama aan helo saraakiish oo asugu soo diyaariyay inuu maanta mas'uuliyadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku wareejiyo taas waxaan dareemayaa inay runtii ay u tahay guul waxaan dareemayaa farxad gaar ah inay u tahay waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay inta uga gudbo waxaan isleeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay waayo aragnimo wuxuu u baahan yahay khibrad wuxuu u baahan yahay aqoon runtii laakiin waxaan ku rajaynayaa insha Allah ta'ala haddii aan isku daro ama aan isku darsano awoodda dhalinyarada iyo aqoonta iyo waayo aragnimada dadkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddo dheer ku soo dhex jiray labada haddaan isku darsano waxaan isleeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa laga dareemi doonaa isbedel degdeg ah waxa laga dareemi doonaa inaan muxuu ahay ii sheegay meesha maantay taliyihii iyo taliye xigeenkii iyo wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga hortay asigana ay u tahay runtii farxad gaar ah iyo saaxiibadana kaloo nala shaqaynayaba inaan meeshaas ka sii wadi doono gaarsii doono hirgelina doono ummadda Soomaaliyeed waxa ay naga sugayaan iyo mas'uuliyadda ay muxuu ahay ii sheegay noo igmadeen oo nasaaran oo guud ahaan dalkeena iyo muxuu ahay guud ahaan qaaradda aan ku sugannahay gaar ahaan dalkeena intaba naga saaran waan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan ku dadaali doono idanka Ilaahay waxaan ku dadaali doonaa dhismaha dishibiliinka ciidanka tababarka iyo tayeynta intaba waxaan awoodeen isugu geey doonaa nimankan haddii Ilaahay ogolaado anagoo kaashanayna in Allah inta gacan ugu siinaysa nimanka u diiday ummadda Soomaaliyeed nabadii iyo noloshii banaysta dhiigooda iyo maalkooda muxuu ahay ii sheegay go'aankooduna naqday inaan ummadda Soomaaliyeed marna aysan ku nasan muxuu ahay ii sheegay nabad guriyahoodana aysan ku haysan taas ayaan muxuu ahay ii sheegay wadan isugu geey doonaa mar raba aniga hadalka maanta inaan ku sii fogaado maadaama la yiri wax allaale iyo wixii muhiimka ah ay ka hadleen taliyayaashii hore waxaan rabaa inaan mar labaad saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyayaashii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hogaamada iyo guud ahaan inta halkan ku sugan iyo inta naga maqan ee ku sugan wadanka goboladiisa kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma jiro shakhsi guuleysan kara laakiin waxa jira team guuleysan kara sida taliyaha xoogga oo muxuu ahay waxaan rajaynayaa markay inaad fuli doontaan dardaarankii taliyaha ciidanka xoogga oo ahaa iyo taliye xigeenkii haddana ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ahaa inaan gacmaha isqabsano wada shaqeyno ka fikirno mustaqbalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meesha uu ku socdo iyo mas'uuliyadda ummadda Soomaaliyeed ay naga sugayaan aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa isu hari doonaa waqtiyo kalena noo dambay doona aad baa u mahadsantihiin